asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xilligu waa 10kii iyo barhkii habeenimo. halkan waxaa igula sugan cabdiqani maxamed cali oo ah nin dhallinyara waaya araga oon jeclaystay inuu idinla wadaago waaya aragnimadiisa la taxalluqda noloshiisii dhallinyarnimo. halkan waxaan ku weydiin doonaa dhowr su-aalood oo anigay la muuqda inay aada muhiim u tahay inuu dhegeysto qof kastoo dhallinyara. markaa su-aasha ugu horeysa ayaan cabdiqani weydiinayaa waxay tahay, muxuu ahaa casharkii ugu qiimaha badnaa ee ay noloshu ku bartay? ha noqoto casharkaasi mid dhanka wanaagsana ama dhanka adaga. aad baan horta marka hore inii salaamayaa daadiyaha barnaamijka maxamed faysal oo halkan si wanaagsan igu soo dhaweeyey, uuna ku mahadsay su-aalaha weydiinayo oo aragnimadeyda inuu ka ogaado jeceliyo wixii waanaha. haddaan marka hore ku bilaabo waxa noloshayda wax ku bartay, dee horta wallaahi way badnaayeen, laakiin haddaan mid ka soo qaato amba laba ka soo qaato, dee anigoo horta waqtiyo adag soo maray, rufuuna iska badnaayeen, waayo aragnimada aan ka kordhistay inaanan dee qof kale u baahan, ayna bili-aadan baahi ugu qaban, oon iska feeyo anigoo daayara oo ka yar dadaada 18 meelaha ahba, dee aan nolol maalmeedkaygana dhacsado, aan xoogsado ayay bartay, oo waxyaalo badan dee aan kaga dheeraaday baryadooda baahidooda. alxamdulilah markaa wallaahi. markaa cabdiqaniyow, waxaa la odhan karaa soo maaha adigoo aada u daayar ayaad nolosha dhabarka saaratay si aad uga maaranto ibni aadamka baahiyihiisa. anoo yar baan galay arrinkaa halganka nolosha, oon iska feeyo oon dee bili-aadan u baahan ilaahay mooye. ilaahayna igu asturay, waana dee xoogaygana waa cunay, wax badanna waan ka dhigtay alxamdulilah. su-aasha labaad ee aan u gelaynaa waxay tahay, maxaad is leedahay qof kasta oo dhallinyaro ah waa u muhiim inuu waqtigiisa intiisa ugu badan ku qabto? qaab noociyee baa jecesha inuu qofka dhallinyartaa uga faa-iideysto waqtigiisa qiimaha badan? anigu waxaan kula talinaa dhalinyarta waqtigaa, anigu aan ka qomeeya imika waqtigaas waxa weeyaan waxaan ku bulmiyey kubad iyo waxyaalo kale oon dee faa-iida aan maanta ilahayn, oon ka qomeeya doon dib markaan u xasuusto aan idhaho maanta haddaad saa samayn lahayd oo saa wax u barin lahayd, dadaali lahayd, aad xooga saari lahayd dhanka waxbarashadoo kale, inaan dee maanta aan xaaladan aan ku jiro amba noloshan aan ku jiro nolol kaloo ka duwan aan geli lahaa. laakiin nasiib darro waxay qaaday ciyaalnimo oo dee iyo dhalinyarnimo, dee kamana faa-iideysan halka iyadaa. laakiin dhalinyartan dambe ee lodkaygaas oo kale waqtigaa ku jirta, waxaan la waxbarta, waqtiyadiina kalena iska dee kubadiina ciyaara, dee balwadaha kalena ka dheeraada, laakiin xoogga mar walba saara waxbarashada iyo noloshiisa isbedel u samayn lahaydeen ayaan kula talinaa. markaa qof kasta oo dhallinyara waxaad la jeclan lahayd inuu waqtigiisa uga faa-iideysto dhanka san ee togan. su-aasha ku xigteen ku weydiinaya waxay tahay, ma jira hal sheeko oo adiga ka cabdiqani ahaan noloshaada saameyn aada iyo aada u xoogan ku leh, taasoo noloshaada wax weyn ka bedeshay ama cashar weyn ku bartay, haddii aad nala wadaagi karto? way jirtaa, waayo adigu dee isbedel weyn baan sameeyey anigoo dee soo kaca cuna caba gurigeyga jooga oo dee iska dhalinyara, oo dadkii kalena dee xaaladaha iskaga jiraan dhalinyarnimo, ayaan shaqo galay oon dee kacay oon xamaashay oo nolosha isbedel sameeyey, wax badanna qabsaday alxamdulilah. dee aan dadkaygana ku kafeeyey, dad badanna aan wax ku taray de. marka adigu isbedel waan sameeyey, waa ka isbedelkaas. cabdiqani, haddii lagu odhan lahaa tusaale la tali da-daadii 18 jirka ah ama shaksiyadaadii marka aad ku jirtay xilligaad ku jirtay da-da 18 jirka, taladaad siin lahayd, maadaamaad imika waaya arag tahay, nin muddo badan soo jiray aad tahay, waayo badan soo maray aad tahay, khibrad badan la aad tahay, waxyaabo badan goobjoogo ah aad tahay, maxaad kula talin lahayd da-daadii ama shaksiyadaadii 18 jirka ahayd haddii aad nasiib u yeelan lahayd maanta in sidan aan kuu horfadhiyo ay kuu horfadhido? wallaahi waxaan kula talinaa horta kow dhanka cibaadada iyo digriga ilaahay inay dee xooga saaraan, kabacdi aan ku dadaalaan dhanka waxbarashada, ay waxbarashada aada xooga u saaraan. waxa soo haraa waa wax yar oo iska fudud, dee dhalinyartu ay kubadooda iska ciyaaraan, balwadahan kale ee xunxun ay ka dheeraadaan, ay kubadda isku dhaafiyaan, laakiin muhiimadda waxaan leeyahay anigu dhanka waxbarashada
xooga saara oo nolosha isbedel ku sameeya oo dee xadhigga ilaahayna ha sii dayna. marka anigu intaasoo kula tilaa dhalinyarta oon la jecel weliba dee maanta haddaan halkii aan joogi lahaa taasumaan samayn lahaa taa nafteeda la jecelay walaalkana oo la jecelay. marka dhalinyarta waxaan kula talinayaa dhanka cibaadada iyo digriga ilaahay iyo xuska alle iyo de waxbarashada aad weliba xoog u saaran miisaanka, waayo maanta wax lagu kala hormaray waa waxbarasho. qofkii cilmi leh aanba de maanta meel mari karaya. waa gartay. cabdiqani waxaan joognaa guntiga gebagabadii barnaamijka. su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijka aynu kusoo afjaraynaa waxay ka odhanaysaa, ma jiraan waxyaabaad ka qoomamayso oad is leedahay haddii aad sixi lahayd noloshaadii hore waxay noloshaadu u ekaan lahayd nooc kale, waanu la jeedo inay noloshaadu heerkanaad maanta taagantahay heer kale oo kasii sareeya ay gaari lahayd. haddii aad nala wadaagi karto 1 iyo 2 ama 3 qodob oo arinta su-aashaas khuseysa, aad bay u anfici lahayd dhalinyarta dhegeysanaysa iyo anigaba. hal mid baan ila wadaagayaa. waxaan dee luskareyey wax badan, adugu wax iska xogayan luskareyey, waayo waxbarashadii aan hoos u dhigay. muhiimadda ugu culus ee aan ka qomeyn karayo kale waa anoo dee waxbarashadii anoo wata haddana dee aan miisaanka xoog u saarin. waad garan kartaa markuu qofku dhalinyarii uu soo kacayo madaxa qaadayo dee madaxa dee xaalado adag oo go-aamo adag buu iska qaataa. anna waxaan dee kala talinaya dhalinyarta in luskarayn waqtigaa jaanisna waa haystaan ay xoogga saaraan intaan ka hadlay ay kuna dadaalaan dhanka waxbarashada. cabdiqani waxaan uga mahad celinayaa waqtigiisa aadka u qiimaha badan. waxaan leeyahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad noola wadaagtay waaya aragnimadaada iyo khibradaada. intaynu barnaamij kan lamida ku kulmi doono, asxaabtana waxaan u ballan qaadayaa inaanay noqoneyn cabdiqani barnaamijkii ugu dambeeyey ee uu nagula kulmo. waxaa iman doona barnaamijyo kale oo ka xiisa badan. cabdiqani waxaan la sheekeysan doonaa isagoo intan ka waaya aragsan, isagoo intan ka weyn, isagoo intan haddii ilaahayna gaadhsiiyo ka khibrad iyo waaya aragnimo badan. insha allah waxaan rajeynayaa inaynu kulan dambe oo aad u xiisa badan cabdiqani isku nimaadno insha allah. haddoo aad baan rajeynayaa, waan ku faraxsan la kulankaaga iyo wareysiga aad iga qaaday maxamed faysal cali. aad baan ku bogaadinaya walaal. dhammaan asxaabta aad iyo aad baan idin salaameynaa. waxaan idin rajeynaynaa habeen wanaagsan iyo kulanti dambe.